معك إسبين أيام كسي جرنا عشرة أهمية لها لمعامل كحاجة معاملشة وأنتو حقادنا أن عوان مهمة وضدك أنت بدن وحواية سكبرى ركسنين أيام قادنا إن هدي الله إنه شركتها الدون كشقية وكل دوينهن شركة أدية كشقيسو أما آلة هاي أما مسؤول كتهاي وحا حقيقة إن اللي هاي نظام أيضا أقوني نظام لقوله معاميشة وحال يراهدا كمباني بوليس أيا يراهدا أما كمباني بروسيجرز أيا يراهدا inta badan qof kasta oo shirkadda ka shaqeynaya oo la macaamilayo macaamiil banaanka ka imaanaya wuxuu u baahan yahay inuu policy-gaas ama siyaasadda shirkadda u degan inuu yaqaano qofka haddii mobile tusaale ay shirkadaadu gaddo oo macaamiisha aad ka gaddo markii mobilkaas qofka macaamilka uu qaato tusaale macaamilkii mobilkii waa ku qanci waaye waa soo celiyay maxaa policy oo shirkadu weeyana waa inaad taqaanaa waxay rabtaa ahaato haddii rabto inaan waxba la celin policy ha ahaato waa ku qancinay waa u sharaxay ama tusaale ahaan waxa la yiri policy ahaan waxaa noogu qoran haddii qofka macaamilka ah oo adeegii ama productiga uu naga qaatay uu soo celiyo cilad la yaqaanana ay ku imaato aan u bedelno si macaamiishii aysan nooga dhumin policy-gaas shirkadiina u degan ama waxaa laga yaabaa inay u qoran tahay macaamilku hadduu shay ku qanco hadduu ku qanci waayo wuu soo celi karaa ama ha ciladoobo ama yuu soo ciladoobi intaba way noqon kartaa tusaale marka haddii heshiis lagu yahay ama shirkadaada policy-ga iyo nidaamka u degan siyaasadda u degan ay tahay in haddii macaamilku oo mar mobilka soo celiyo in laga celiyo adigana aadan aqoonin policy-ga shirkadda oo shirkadda aadan fahansaneen maxaa ku indhacday doontaa waxa ku indhacday doontaa laga celimayo laakiin shirkadii policy-geeda u yaala maxaa waaye qof kasta oo macaamila markuu adeegii keeno ama productigii keeno haddii uu ku qanci waayo in laga celiyo wakaas wala fahmaa sooma adiga marka ma taqaanid haddaad marka aad policy company-ga muhiim ku yahay haddaa weliba aad la macaamilaysid macaamiil banaanka ka ah haddii aad la macaamilaysid muhiim ku yahay qofkan shaygii hadduu ku qanco waa alxamdulillah hadduu ku qanci waayo policy-ga shirkadda u yaala waa inaad taqaanaa waxaa laga yaabaa tusaale in adigoon ogeyn oo policy shirkadda fahansaneyn qofaa soo celiya adeegii ama alaabtii isla markiiba waa u bedeshay dhibaato way kugu noqonaysaa aday kugu dhacaysa hadhow maxaa laga rabaa qofkan policy-ga celinta inaa asaga ku qanciso mararka qaar waxaa laga yaabaa in haddii qofku adeegii soo celiyo ama productiga uu soo celiyo adigana aadan policy-ga shirkadda ama siyaasadda shirkadda aadan aqoonin maxaa dhacaya laga celiyo hay waa laga celinaa lacagteeda la siiyo hay waa lagu siinaa laakiin shirkadda policy-geeda iyo qaybta xisaabaadka marka la tago no refund waayaba lacag lama celiyo oo qoranba adiga marka maxaa kugu dhacay marka meeshaas policy-ga shirkadiyaada aqoonina ku xad gudubta qofkii macaamilka marka lama qanci karo lacagtii waa lagu celaha la dhahay aniga ala soo yiri ma idin kala yaqaan qofkan meesha uu ka shaqeeyo ma nadaafad uu ka shaqeeya ma baabuur uu ka shaqeeya ma dhul xaqo uu ka shaqeeya ma banaanku iska jooga ma dalaala midka qofkan shirkadu ugu yimid adeegan ka gatay ama product aan ka gatay markaan soo celiyana waa qanciyo wuxuu yiri alaabtu waa laga celinaa lacagtaada lagu siinaa haye shirkadii marka policy-geedii hadhow dhibaata ku noqonaysa marka waxa laga rabaa qof kasta
oo shirkadda ka shaqeeya inuu fahansan yahay policy-ga shirkaddaas u degan. Okay, intaasaan isleeyahay maanta waxa waaye way ku soo gabagabeynaynaa macadka Spain markaas uga barateen siyaasadda hagidda macaamiisha iyo dhammaan koorsooyinka la xiriira horumarinta qofka bini'aadanka. intaasaan isleeyahay marka wixii faahfaahina waa nala soo xiriiri kartiin. waa mahadsantiin.